Masai Mara waxay ku taalaa dalka Kenya waxaanay ka mid tahay goobaha ugu xayawaanka badan ee qaaradda Afrika. Xayawaanadan oo soo goosha mararka qaar dalka Kenya una talaaba xagga iyo Tansaaniya. haddii aan sawir kooban ka bixino xayawaanada dalka Kenya una gudbo mararka qaar xagga iyo Tansaaniya waxayna tusinaysaa in xayawaanadan kaliya ku tiirsan yihiin xilli roobaadka iyagoo mararka qaar daaq u la fogaado lana gaaro xagga iyo dalka Tansaaniya. وأروريه هره أما هير صباحات وحاني حيوانات سود يارني سفر دير يكون واجهين دلك تنسانية وحاني تريان إلا أكون يشن بقول كيلومتر سنة كستلا بمليون وحيوان أو كقبلنا أول بعيا وحكتك عن Masai Mara يكون واجهين سرنجيتي يدلك تنسانية sidoo kale halkan waxa ku nool raxan libaaxya taas oo maamulo mid lab oo aad u xoog badan sidoo kalena ay la jaar yihiin xayawaano badan oo ka mid tahay looda dameer farowga deerada iyo nooc walba run ahaantii goobtan nolosheedu waa mid aad u qalafsan waxaana macquul ah inay ka adag tahay siday noola muuqato isku tagga midka lab iyo mid dhadig waxay qaadanaysaa waqti taasoo lagu qaasay maalintii 100 jeer waxa uu gabeehaanba joojinayaa midka labi inta uu la joogo mid dhadig ugaarsiga iyo shaqo kaste oo uu qabanayay inta hawshan socoto meel la kala tagi maayo waxa ugaarsi la yiraahdana haba yaraatee ma jiraan waxaana isu daba soconayaan sida harkooda oo kale isa saarashada iyo isku tagga midka lab iyo mid dhadig libaaxu inta badan kuma xidhna waqti guya tiilal iyo dayrtoona balse waxay ku xidhan tahay doonista iyo diyaar garowga oo kaliya mid dhadig xageeda ka yimaada qoyskan libaaxyada ah inta waa ka tiro badan yahay waxa jira 8 dhadig ah 12 yar iyo qaar kale oo lab balse hal mid ayaa loo ogol yahay oo kaliya inuu saarto kuwa dhadig ah qoyska dhaxdiisa waa maxay sababta waxaan xayawaan ay u joogaan Masai Mara sababtoo ah bisha February roobka ka daa ayaa 3 wiil kadib waxay soo saaraan doog badan oo nafaqo leh kaas oo soo jiita dhammaan xayawaanada xayawaanadana waxay isku diyaarinayaan inay socdaalaan 700 kilomitir xagga iyo Serengeti u socdaalaan loodu waa ta ugu badan ee socdaasho balse xayawaano kale ayaa ku lamaan oo kamid yahay dameer dabadeedka libaaxu waa midka ugu badan ee ugaarsada halkan Masai Mara waxaanu ka dhax ugaarsada xayawaanadan tirada badan
miiska cuntada ee libaaxyada inta badan waxa ka dhashay caqabado balse hooyadani way fasaxday kuwa yaryar ee ilkaha caruurnimada ay ku jiraan ma cuni karaan maqaarka sare ee dameer farowga waxaanay ka galayaan meelaha hooyadood ka hudhay ee bannaan ugaadho halkani waa mid tarabtaraba joogta libaaxuna gaajo badan kuma qabo middan dhadig ahi waa midda ugu khibrad badan qoyska dhexdiisa waana midda hogaamisa ugaadhsiga kooxeed waxaanay markay cunto kadib ilaaleynaysaa hareeraha halkaasoo ka soo gudi karto khatar kasta oo soo warisa ugaadhani kuwa dhadig ah ee qaangaadhka ah maalin kasta waxay u baahan yihiin 5 kilogram oo hilib ah halka mid kale uu uga baahan yahay 7 kilogram oo hilib ah balse kuwa yaryar iyaga waxa la isugu darayaa xogaa hilib ah iyo caanay hooyadood ka taqayeen waxay si fiican u korayaan ilaa 6 bilood halkani Masai Mara xayawaanadu waxay maalmo u lugeynayaan siday u heli lahaayeen geedaha ugu saxsan ee daaqaan maroodiyadu inta badan waxay socdaan arooriyada hore si ay uga hortagaan cadeeda socodka iyo geediga dheer waa caajis badan yahay ku yaryarna waxay wada qaataan waqti ay ku ciyaaraan Matriarch waa mid digwaana hoggaanka qoyska waana mid ugu khibradda badan kooxdani Matriarch waa mid aad u xasuus badan waxaana inta badan u hoggaanaysaa meelaha ugu daaq badan waxay ogtahay Matriarch inay ku yaryar ku caajisayaan safarka dheer waxaana siinaysaa waqti ay ku ciyaaraan uguna tababartaan halganada nolosha ee dambe balse waqtiga ay go'aansatay Matriarch inay socodka sii wataan ma jiro cid ka hor imanaysa mid kastaana waa u dabagalay marka laga reebo kuwa yaryar ee daciifka una baahan inay ka yara dambeeyaan kooxda meel kasta kuwa labi waa kuwa ka abuura rabshada kuwa labeed dameer farowga ama dameer dabadeedku waxay isku haystaan kuwa dhadig inta badan dameer farowga ama dameer dabadeedku waxa uu nool yahay koox yar taasoo ka kooban ilaa 15 inta badan waxa ku jira 2-3 lab si kastaba ha ahaatee markuu jiro safar daaqeed ama meel in loo guuro oo xaggaasi daaq loo bidayo waxay kuwa laba isku dilaan kuwa dhadig maadaama uu soo dhow yahay saarashadii kuwa da'da yar laftoodu way isku tababaranayaan iyaga dhexdooda iyagoo isku baranaya dambaabirada ama laadka dambe si hadhow dhexdooda ay u difaacaan ama libaaxa isaga celiyaan midkani waa gari ma tira badna balse dhulka waxa uu ka sareeyaa 5 mitir oo aad ayuu u dheeryahay faa'iidooyin badan ayaa uu leeyahay dhararku gariga waa uu ku daaqaa geedaha dhaadheer sidoo kalena waxa uu kaga badbaadaa bahalihii ugaarsan lahaa way dagaalamayaan iyagoo isdhaafsanaya qoortooda labadan gariga ee lab ee ku nool halkani Masai Mara
Kenya. Midba midka kale ayaa uu ku weeraraya madaxiisa. Habdagan ayay u dhaqaaqayaan waxaanay leeyihiin waxaad geeso moodo balse aan ahayn geeso. halkani Masai Mara ee dalka Kenya gariyada ku nool waxa u noolyihiin koox yar taasoo hogaamiyaan kuwa lab waxaana macquul ah in ujeedada laga leeyahay dagaalkan ay tahay in la soo kala xusho midkii xoog badan ee hadhow hogaamin lahaa qoyska. Garigu wuxuu aad ugu egyahay xoolaha inuu dhaqanay loo yaqaan geela sidoo kalena garigu dhulka hoose inta badan kama daaqo doog balse mararka qaar carro dhanaan ayaa ka cunaa. bahalka loo yaqaan garigu qoortiisa iyo jismigiisa oo aad u dheer ayaanu si fiican u wada gaarahayn balse in ku filan waa u gaaraya. xididada madaxa maraa waxay ka qabanayaan inuu dhiig badan maskaxda ku dhaco tanina waa abuurta Ilaahay. soddon ilaa 40 gari oo dhadig u badan ayaa lagu arkaa halkani maalin walba Masai Mara. وقار aad u nafaqo badan una qoyaan badan xayawaanada kale aanay daaqin waa geedaha dhaadheer. dhirta ku taal Masai Mara qaarkood waa qaar aad u qodax badan balse garigu isagu waxaasi tan kama galo waa iska daaqa abuurta Ilaahayna waa ugu dara. kuwa loo yaqaan herbivores ama kuwa dooga cuna halkan Masai Mara waxa u nool yihiin koox ahaan. inta badan deeradu waxay door bidaa cawska hoose. qaylada iyo qalaadka ka soo baxaya kuwa lab ayaa waxay ku soo dhacayaan maqalka dhagaha kuwa dhadig. istilka iyo dagaalka ka dhaxlacaya kuwa lab iyo qabta geesahoodu waxay inta badan digniin u tahay kuwa dhadig. kuwa lab midka ugu xoog badan loo kaliya ayaa qoyska dhaxdiisa loo ogol yahay. midka lab waa uu soo celinaya kuwa dhadiga ah ee u talaabo xuduudaha kuwa kale. tira badan oo dhadiga ayuu kaligu ku qoqan yahay waxaanay tirada badan soo jeedinaysaa kuwa kale ee lab waanu in badan dagaalamaya.
maalintu way sii kululaatay Patriarchna khibrad badan ayay u leedahay sida looga badbaado cadceed waxaana ay hogaamisay qoyska meel doog badan leh waqtiyada adagyadaha qoyan waxa u yihiin biyo cunto labadaba waxay ku jiraan xayawaanada isugu jecel dhexdooda aad been isu salaama gacanka dheer maroodigu wuxuu qabtaa shaqooyin badan waxaanu leeyahay ku dhawaad ilaa 100 muruq biyaha ay ku cabaan way ku daaqaan sidoo kalena waxay ku muujiyaan dareenada dhexdooda mararka qaar way adag tahay in dib la isku hayo Patriarch oo ahayd hogaanka qoysku waxay haatan dhashay mid yar midka yari waxa uu ku socdaa cagihiisa balse wali ma aha socod dhameystiran oo stable kuwa dhadiga iyo hooyadiina waxay ku caawinayaan inuu si wanaagsan u dhaqaaqo waxa uu garan waayay hooyadii midka yar waxaanu sanka la raacayaa kuwa dhadiga sidii bal u aqoonsado hooyadii hadii kale halis ayuu ku jira maroodigu dhaxdiisa waxa uu iska caawiyaa dhasha isla mar ahaantaasina koriinka midka yar waa shaqo u taala dhammaan kuwa dhadiga oo dhan waxaana la nafaqeyn doonaa muddo ku dhow 22 bilood inta kadib midka yar waxa uu bilaabayaa inuu hooyadii caano ka nuugo taasoo mararka qaar ku qaadata saacado balse hooyadii samir badan ma laha maanta waxa uu ka nasiib badan yahay qaar badan oo ka dhaqaaqan hooyooyinkood waana markii ugu horeysay oo hooyadii caano ka nuugo
meelba meelaha ugu dooga badan ama ugu cawska badan la kolba xilliga la joogo ayay ku hogaamisay khibradda awgeed. waxay garan og tahay dhaamamka iyo meelaha biyaysan waxaanay ku soo hagaajisay maalinta bartankeedii goob biyo ku jira. saddex jeerood oo xoog badan ayaa halkani hurda balse maroodiga isaga kuma dhacaya. maroodigu maalin kaste wuxuu u baahan yahay 60 ilaa 90 litir oo biyo inuu cabo maalin walba. halkan oo kale uu jecel yahay maroodigu waxaanu ka helaa nafaqooyin isaga u gaara. midkii yaraa markiiba waa uu la qabsaday nolosha adag ee maroodiga biyahana hore ayuu ka galay. hibeeba ku dhaliyay habeen la iskama qaado biyihii ayuu dhinaciisa ka cabiyay. goobtani maroodigu kaliya wuxuu u isticmaalaa inuu biyaha ka cabo maadaama aanay dhoobo badan oo ku qubaysto lahayn. yaalaaba maroodiga iyo bahalka loo yaqaan qaansiirka ama doofaarku waxay ka mid yihiin xayawaanada dhoobada ku qubaysta ama ku maydha si ay isaga dilaan xayawaanada iyo dulinka. dhoobada halkani waa mid xajmi ahaan aad u yar mana wada gaarayso balse dhib male qubays jiraantu waxay dhaantaa qubays laanta. dulinku noloshooda waa ku halis dhaska kulul laftiisuna waa uga kaxaynaya. waxaa jira qaar ka duwan maroodiga waa looda oo iyadu ku tiirsan shimbiraha oo ka gurta dulinka iyo shilinta ku dhalata. shimbirtani waa nooca loo naqaan mijacasta ama xuurta waxaanay ka timaada xagga iyo Senegal waxaanay timaada halkan Masai Mara.
xayawaanada iyo duurjoogta ku nool Masai Mara waxay jecel yihiin inay si maalinle biyaha ugu raaxaystaan. dameer farowga kuwa laba halkan inta badan waxay ka eegtaan kuwa dhadiga. markaste meelaha biyaha laga cabaa waxay soo jiidan kartaa qaar khatar badan kuwaas oo naftooda salfan kara kuwa biyaha cabaya ama ugaadha lafteedaba. iska waxaysiga waxay ka helaan feejignaan dheeraada. inta badan kuwa xogaarsada waxay raadiyaan fursad mid gees u baxay oo imalgaan. waxay soo gaadheen goobta balse maanta halkan waxa u yimaadeen oo kaliya inay biyo cabaan balse jaanis kale ayaa halkan ka jira oo ah mid dameer ah oo ku dhagtay dhoobadu iyagana waxay u tahay jaanis. isla markiiba waxa dhoobadii galay mid yar oo lab waxaanu si fiican isu maareynaya oo uu soconaya dhoobada. daqiiqada kooban kadib waa u gaaray mid kale oo caawinaya laftiisa dhoobada ayaa isaga xanibtay. waqti badan uma harin kuwan yaryar ee laba halkan ku ciyaaraya kadib markay cuneen raqday dameer farowga oo caloosha buuxsadeen. inta badan 3 jir markay gaadhaan waxa laga yarayaa qoyska kuwa lab iyagu iskoodu madax banaanada. waxay u tababaranayaan inay noqdaan qaar lab oo madax banaan isla mar ahaantaasina iskood u ugaarsada. wala way isku daayihiin haddana way kala jismi u yihiin kalena xoog badan yihiin. waqtigeeda ugu badan waxa la qaataa dhalaheeda iyadoo ka feejigan ruuga iyo harimaadka oo inta badan ka dira dhalaha waxaana sharciga libaxa kamid ah in ku yarar gooni looga tagin.
libaaxu inta badan waxa uu dhalaa 3 ilaa 4 yaryar mar kasta waxaana waqtigiisa ugu badan la qaataa iyaga ilaa sanadkooda labaad boqolkiiba 50 intaan hal sano gaadhin ayaa waxa dila dhurwaaga ku yaryar ee libaaxa isla mar ahaantaasina ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waa in la carbiyo wax la baro mid kasta oo dhadig oo kamid ah raxantan libaaxyada waxay ku yaryar u tahay hooyo waxaana ka qayb qaadanaysaa koriinkooda daryeelkooda iyo difaacooda intaba dhurwaaga iyo ugaarsadayasha kale oo kaliya khatar kuma ah ku yaryar xataa libaaxyada kale ee qoyskooda ka baxsan ayaa khatar ku ah kuwa labka ah ee qaangaarka ah ee mararka qaar dagaalada waajaha waa kuwa ugu halista badan leh sidaas oo tahayna waa khatar cagabaruuradan yaryar iyaga laftoodu aad bay uga warqabaan khatarta aagan isaga xukuma kana baqi maayo wax weerar oo gees kasta kaga yimaada inta badan libaaxu waxa uu ku hoobtaa oo isku laayaa waa taranta iyo xuduudda aagan libaaxyo kale kama dhawa ku dhawaad 60 jeer ilaa 100 jeer ay isku tagayaan maalinta kaliya sanad walba qoyska libaaxa waxa ku soo biiray ilaa 3-4 cagabaruur midda dhadigaahi waxay noqonaysaa mid cadho badan marka ay socoto hawshani waxaanay wax kasta kala siman yihiin bisada waana sababta loogu bixiyay Cat Family iyagu waa caruuro ciyaar kama daalaan hooyaduna samir badan ma laha raqda aageedana khatarta kama dhamaato ciyaartoodu dhamaad ma laha gelinka dambe gelinka hore xataa habeenkii
da'dan yar libaaxu kaliya ta ciyaarta kama helo fan balse sidoo kale waxa u tahay tababar taasoo hadhow ku waajihi karo markuu weynaado libaaxyada kale isla mar ahaantaasna waxay ka bartaan adkaysiga taasoo gaadsada iyo inta badan ugaarsiga ay ugu sii tababaranayaan inta badan midka libaaxa ee labi qoyska lama joogo oo dusha ayuu kala socdaa waa uu ilaaleeyaa si aan toos ahayn isagoo ciyaya xuduudda ammaankeeda sugaya isagoo ka hortagaya qaar lab oo iska soo gala halkaasina khasaare nafeed uu ka dhasho raqda wixii laga tagaa dhulka u dhici mayso isla markaaba waxay isu bedelayaan dhurwaaga dacwada iyo midka kale ee loo yaqaano gorgorka kolka uu libaaxu caloosha buuxsado ee uu iskaga huleelo raqda waxaa fasax u haysta wax kasta oo u diyaara inay cunaan goor hore ayay timi maanta dacwadu waxaanay caloosha ka buuxsatay hilbaha darayga waxaanay soo qaadatay bulka dambe ee dibiga iyadoo ku ciyaaraysa mid ka mid ah dacwada ayaa dib ugu soo noqday suumar labaad u caawiyo gorgorka balse gorgorku haatan waa uga dhaartay dacwada waxa lagu sheegay xayawaanada caqliga badan leh kolka caloosha buuxsay inay ciyaartaa wax iska caadiya kolkay weydana waa inay ugaarsataa waa biciid dhadiga waxaana taqaanaa sida geesaheeda lagu difaaco marka lagu soo weeraro midda yar way taqaanaa sida loo weeraro xayawaanada xataa hadduu ka ballaaran yahay lama laab way caddahay inay ka go'an tahay inay ugaarsato maanta balse meeday ciddii caawin lahayd waxa soo gaadhay saaxiibadeed balse waa goor laga warqabo gaajo daran ayaa haysa waa 3 wada shaqaysto oo dacwooyin muddo 3 shaax ma cunin
duurjoogta oo noocyo badan waxa isu saaran daaqaya biyaha waxaana ku mashquulayaan qooq loogasiyeedku waxa uu kaalmaha koobaad kaga jira xayawaanada qaaradda Afrika ugu badan kuwa yar ee 3 jirka ee dhallaanka ahina iyaga ayaa isurursanaya isneerinaya 3 jirada lab ee loogasiyeedku waa kuwa ugu orodka badan la uguna firfircoon looda dhexdeeda orodka xiisaha leh ee kuwa yar ee laba ee 3 jirada ay mararka qaar waxa uu horseedi karaa khatar badan taasoo kuwa lab ku gadoodayaan kuwa yar ee haatan u dhashay kuwa yar inta badan dhibaatadana way la kulmaan waxaana ay u kala baxaan laba mid ka hajira dhamaan qoyska iyo mid isagu practice gareeya orodka oo la qabsada nasiib wanaag goor dambe ayaa helay hooyadii waxaanay ka badbaadisay khatar badan waan inuu sida harkeeda u daba socda gaar ahaan waqtiyada socdaalka dheer loogasiyeedka wax arxanimo dhex yaala kuwa dhadig haddii hooyadii ka hadhana xaqiiqatan waa u dhimanaya loogasiyeedku waa xayawaan cajiiba waxaanu ku mid yahay xayawaanada ugu kicista horeeya markay dhashaanba 10 mirir kadib waa uu istaagaya isla mar ahaantaasina hooyadii ayuu jaqaya khataraha guurguurka iyo deegaanka iyo daaqsimeedka oo la kulmo waxa inta badan halis ku tahay noloshiisa taasoo mararka qaar ka soo waqsan waayo dameer dabadeedka ama dameer farowga iyo loogasiyeedku hal goob ay wada dhaqaaninta badan iyaga dhexdoodana khatar isuma arkaan inta badanna waqtiyada abaartii noloshoodu way isku tiirsantahay oo biyaha ay ku kulmaan kooxdani waa kooxda inta ugu badan halkan ay ka ugaarsata inta badanna waxay ugaarsadaan kuwa dhaawaca kuwa yar iyo kuwa itaalka daran leh ujeedadiisa ugu weyn maalin walba waa inuu helo 5 kiilo oo hilib balse haddii taasi la waayo beddelkeeda waa iska ciyaara maadaama ay waqti badan soo wada qaateen noloshooda isku meel ku soo koreen xiriirkoodu waa mid wanaagsan qaniyad ahaanna waa qaar isku san xiriirka noocani wuxuu kor u qaadayaa noloshooda isla mar ahaantaasina guushooda ayaa badanaysa maadaama ay ronro yihiin xataa iyaga laftoodu mararka qaar dhexdooda ciyaara
روميو وأباها iyo mas'uulka xuduudan waana mid ka dhalay ku yaryar ay ku lamaan ku wadadii haatan wuxuu hawshooda ku jira qaar cusub inuu dhaco cadceedu way gaaban tahay haatan kuleyl badanna ma laha xayawaano badanna waxay sugayaan waqtigan inay biyaha cabaan libaaxyadani waxay joogaan biyaha aagooda iyagoo inuu qundareynayo waxay ugaarsan karaan inay yimaadaan daalkii maalintuna aad uga muuqdo goobtani waa goob nasasho waxaana cadceedu markii qabowdo inta badan libaaxyadu iska seexdaan bacaadka halkani Masai Mara xayawaanadu mid kasta gees ayuu u caraabayaa kolka cadceedu gaabato waqtiyadan oo kale oo waqtiyada cawadaranta la yiraahdo ee midka wax ugaarsanaya ugu jecel yahay cadceedana si fiican loo arko qaaradda tan Afrika xiliyadan oo kale xilli abaareedka marnaba xayawaanadu ma waayaan cawska iyo biyaha tanina waa sababta xayawaanadu qaaradda Afrika ugu badan yihiin